inay wax mucaaradaan mooyaane xirfad kale weli afkooduna ma baran gacantooduna ma baran hawadan fiisaha laynoo jarayo ee ninka Somalilanderka tigidhka Dubai ka soo goosanaya ama United States ka soo goosanaya ama UK ka soo goosanaya fiisaha Soomaaliya u jaraysana waxaad ka qabatay noo sheeg اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلهي قرنك هينو أدكيو قرنك إلهي هينو مديو ما أنت هجانك قرنك waxaynu ku ognahay cid baynu ku ognay niman reer wadani la yiraahdo ku ognay niman badan oo asxaabna waxaan leeyahay reer wadani markaanu ka hadlayno reer kama hadlayno midda hal ogaado midda labaad waxa weeye Soomaalidu waxay hore u tiraahdaa habar fadhida legdini wax uga fudud nimankii odayaasha ahaayeen ku ogeyn talada qaranka weli mucaarad bay taagan yihiin inay wax mucaaradaan mooyaane xirfad kale weli afkooduna ma baran gacantooduna ma baran waxaan uga socdaa qaranka wixii ka xumaada dee xisbiyada mucaaradka ku eedeyn jiray dawladda xilka haysa laakiin haddaynu aragno dawladdii xilka haysay oo ceebaha dhacaya ku eedeynaysa xisbiyada mucaaradka waa dhibaato waliba kaaga daran xisbiyo uguba oo imika dhashay ayay eedii dawladdu lahayd intay rabtay inay soo rartoba waxay doonaysaa inay sidii mucaaradka ku eedeyso waxaan mucaaradda la wax xirfad la barto in dambiyada cid kale loo sameeyo ninka odaga madaxtooyada inoo joogay Allah barakeeye qaladaadkii iyo ceebihii dawladdu lahayd baa wuxuu rabaa in cid la raadiyo arrimihii hawada iyo arrimihii xuduudaha iyo dhammaan waxay noqdeen diin qolofta laga qaaday shimbiruhu markay diinku qolofta leeyahay way afkooda la baqaan laakiin haddii qolofta looga qaado shimbiraha ku soo qoslaya mugta marka waynu ognahayo ra'iisul wasaare Xamsa iska soo galay wadanka ninkii odaga ahaa ee dawladdii hore ay waxa weeye kabiya karintiisa gubtay garhkii timooba ku baxeen oo halkii buuniye ayaa u soo hamiyo diglay inuu isna yimaado uu soo galo xuduudka Soomaaliland ragna waa kuwii waqtiga rag waxaynu oran karnaa iron systemkii hore nin adag oo la oran jiray maxaa la oran jiray madaxweynihii Soomaaliya hore Allah musta'aan farmaajo oo runtii nin adag ahaa ayaa ku soo dhiiran waayay inuu ku soo dhawaado xuduudaha Soomaaliland oo intuu tago Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u soo mariyay waa balkaalayo ila qabo oo igala hawlgal sidaan bal lugta u dhigi lahaa Soomaaliland maantana waa la soo dhigaya waa la inagu eegay maalintii waxaan arkay hawada Soomaaliland oo caqabada ka taagan tahay oo halkii waxa weeyaan wax laga qaban lahaa iyadoo maanta ganacsi la inaga furtay oo fiisayaal inoo jarayo hargeysa ka soo galay fiisa loo jarayo in eedeedii maxamuud xaashi baa lahaan jiray oo maanta wasiirka madaxtooyadu la soo fadhiistay dadka hortooda shame baanu leenahay waxaas wax laga xishoodo way adigu waxaad qabatay noo sheeg waxaad ka qabatay noo sheeg xasan ra'iisul wasaare Xamsaha soo galay xuduudka Soomaaliland waxaad ka qabatay noo sheeg maxaa la oran jiray ninkan hadda madaxtooyada filla Soomaaliya joogay ku soo socda isaguna Soomaaliland inuu xadkeeda cagta soo dhigana waxaad ka qabanaysaa iyo wax kaaga qorshaysan noo sheeg hawadan fiisaha laynoo jarayo ee ninka Somalilanderka tigidhka Dubai ka soo goosanaya ama United States ka soo goosanaya ama UK ka soo goosanaya fiisaha Soomaaliya u jaraysana waxaad ka qabatay noo sheeg
weli mucaarad baad ku jirtaay waxaanu kugu dhaaranaynaa war xilkii adaa haya bal isku noqo waxaad ka qabatay noo sheeg caqligayga ha caayin bal ceebtan ilaahay bal ceebtan socoteega war bal isbarqabtoo nimankaa reer wadani waxaan leeyahay waxaa wax ka duwan